mahadsantihiin runtii madashan sharafta leh adigu marti qaadeen dhalinyarada iyo barnaamijka idaacadda SRTV iyo maaragtay sheekha iyo doctorka baad baan ugu mahadnaqayaa. intaa kadib wax yar waxaan ka oran doonaa anigu dhanka chatka daraasad ay sameysay jaamacadda Harama University oo runtii aad loogu lafaguray iyaan doonayaa wax yaro gogosa intii insha Allah taala barnaamijkan aynu kaga qaadan karno in aynu kaga qayb qaadano horta taariikh ahaan amba adduun ahaan qaadku waxa uu kamid yahay maandooreyaasha adduunka ayuu kamid yahay sida wuxuu ku jira dalal badan oo adduunka waa ka mamnuuc sida wadamada Yurubta iyo Mareykanka iyo wadamada horumaray oo dhan waa ka mamnuuc taasina waxa ay ku sababaan maadaama ku jiro teamka maaragtay xashiishadaha iyo sigaarka iyo waxaas oo dhan ay ku jiraan marka qarnigii 13aad ayuu intiisa badan faafay ilaa qarnigii 15aad wixii taa dalkan Ethiopia bariga Afrika oo kale uu uga gudbay dalalka Yemen iyo waxa dalka Yemen uu yeeshayba oo 16 jir ilaa 50 jir dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 50 dadka inta u dhaxayso boqolkiiba 70 ama boqolkiiba 80% waxa ay cunaan jaadka boqolkiiba 80 marka taasi waa halisaha uu adduunka ku leeyahay ta kale marxalada caafimaad darraba ka dhasha jaadka waxa lagu buufiyaa suntan la yiraahdo DDT ee la sameeyay 1947 oo uu sameeyay dalka Jarmalku scientistiga ninka magaciisa la yiraahdo Otmar Zellner sunta DDT-du waa sun halisa cayayaanka in laga celiyo jaadka loogu buufiyo tuu isagu leeyahay kasakow additive amba ta isaga lagu daro ayaa ka sii halisan waxa ay keentaa kaliya xanuun waxa ay keentaa beer xanuun waxa ay keentaa sabab xanuun waxa ay sabaha saameyn weyn oo caafimaad ay ku leedahay dhiig mareennada dhiiga marka waxa lagu buufiyaa jaadka lagu buufiyaa cayayaanka iyo waxaas yeena u dhawaanin ahaan baa loogu buufiyaa laakiin saameyn caafimaad oo weyn oo khatara ayuu ummadda ku leeyahay by the way sunta DDT-du wadamada saboolka ah ee dawladahoodu ay liitaan qura ayaa loo soo dhoofiyaa adduun weynaha waa laga mamnuucay totally adduun weynaha waa laga mamnuucay laakiin inta la sameeyo ayay ganacsigooda ku danaystaan oo dalalka danyarta ah loo soo dhoofiyaa ee maaragtay dawladahoodu ayna ka sameeyeen marka saameynaha uu keeno waxa kamida DDT-du amba sunta lagu buufiyo waxa ay sadaysaa amba ay waxyeello u geysataa amuuda wax soo saarka dhulka waxbay u geysataa hawada way sumaysaa oo hawada saameyn bay ku leedahay biyaha way sadaysaa oo biyaha dhulka hoos u galaya amba biyaha dareeraha ah saameyn weyn bay ku yeelataayo noolo badan baa ku nool oo biyaha laftooda way sumaysaa cuntada dadka qofka buufiya cuntada marka uu cunayo isaga laftiisa caafimaad darro u keentaa khudaarta sidaas leeg jirka dadka haddii aana taabanin kasako hawo ay ku jirto amba biyo ay ku jirto haddii aad ku meydhato saameyn khatar ayay ku yeelataa jirkaaga caafimaad ahaan ta kale halista uu jaad ku leeyahayna waxa kamida amba waxyaabaha la muuqda ee lagala kulmo waxa kamida beer xanuun baa kamida kaliya xanuun baa kamida nerve dareemaha jirka ayuu waxyeelaa jaadka ay DDT-du ku buufsan tahay marka la cuno waxa kordha marka jaadka la cuno xawaaraha dhiigga kordha marka wadnaha shaqada ku badata ka bacdi qofkaasi marka uu jaadkaasi ka baxo waxa ku soo baxa daal fara badan iyo hiinraag fara badan waayo xawaaraha dhiigga iyo dhiigga wareegaya ayaa saameyn ku leh ta kale waxa kale oo qofka jaadka cuno la soo darsa ilkihiisu muddadii adeeg loogu tala galay in ka badan bay bixiyaan marka way raawisuban amba way madhaan muddadii loogu tala galay inaad ilkaha isticmaasho muddo ka yar inaad isticmaasho ayay noqonaysaa oo 24 saacadood marka jaad raamsato ilkihii adeegii ku bato mididii aad loo isticmaalaba way afbeeshaade marka ilkaha marka aad loo isticmaalo amba xawaara ka badan loo adeegsado
iyaguna way madhaan oo way rabeemaan waxa kale oo jira dhaqaale darro ba'an buu ummadda u keenaa waxaad arkaysaa nin 1,000 bir amba 1,500 oo jaada cunaya laakiin reerkiisii aan 100 riyaal oo biila siinin baad arkaysaa waxaad arkaysaa ayo xumada uu ummadeena ku hayo ninaan reerkiisii xalay tagin oon shalay tagin oon daraad tagin oon biil siinin oo maqaaxiintu jaad ama ha qaatay kale ciraaq maxaynu ka yeelaa muxuu yeeli karaa kadinka ka dhaqaaq hadduu is yiraahdo tii jaadka ama hisay baa dariiqa ku qabsan marka dhaqaale darro xun oo maaragtay ummadda saameyn ku leh iyo leeyahay waxa kale oo jirta rabitaanka cuntada oo liita qabsanada oo xidhma inuu qofka appetite-kiisu xidhmo cirid xanuun baa laga qaadaa calool xanuun iyo calool istaag baa laga qaadaa kaasoo ugu dambeynta sababo kale doctorka ka hadli doone stomach ulcer waxa la yiraahdo oo inay xiidmuhu maaragtay boogoobo ta kale waxa ugu weyn ee khasaaraha ugu weyn ee ummadeena uu ku hayay waxa weeye waqtiga oo kalum waxyaabaha ugu qaalisan kulli sheekha ka hadli doona ilaahay ummadda siiyay waxa kamida waqtiga kamida suurado badan ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku dhaartay waa waqtiga weey wal asr wal layl wad duha waa waqti time waa waqti marka waqtigu inuu qaali yahay waa dareemaysan ninka tusaale ahaan hadal tusaale hadaan idin siiyo isku celcelis imsa saacadood baa jaad loo fadhiyaa waxa loo fadhiyaa ugu maadaama isku celcelis qaar waxa jira saacad cuna 2 cuna 4 cuna 5 cuna qaar waxa jira sida kaalmaha shidaalka 24 saacadood adeeg bixiya oo 24 ka saacadood bay isaguna fadhiya marka isku celcelis hadii aad qaadato 6 saacadood qofku aad tiraahdo jaadka wuxuu cunaa 6 saacadood waa 24 kii saacadood rubuc calculation kale uma baahan 24 kii saacadood rubuc way shakhsigaasi 40 sano hadii uu jiro shakhsigaasi 40 sano hadii uu jiro 10 sano jaad buu fadhi oo waa 40 ka saacadood 40 ka sano rubucoodi 24 ka saacadood rubucoodu waa 6 saac 40 ka sanana rubucoodu waa 10 sano marka 10 sano jaad buu fadhi maalinta yawmal qiyaamana waxyaabaha la isweydiin doono waxa kamida waqtigaaga maxaad ku soo lumisay waan qayilayay halkii ku geyna waa su'aal meesha taala iyaduna maxaa loo cunaa hadaba jaadka saddex nooc baan u soo kala qaaday marka anigu dan cun baa jira in dan u cunta oo amba isku maaweelisa amba markay soo shaqaysato daalka isku yara ilowsiisa dan cun baan idhi taasoo waxa weeye entertainment inay isku maaweeliyaan inuu cuntaa jirta daal cun baa jirta markay shaqada dadku ka yimaado ee uu soo daalo daalka iskaga bi'i iyo u cunaa kaasina ka saddexaad baa ugu daranoo waa ka doqoniimo cuno dan cun daal cun iyo doqoniimo cun baa jira 24 saacadood shaqo aan jaad lahayn iyo isagii shaxaad ahaan ku raadi cid aan amal inta mooy in kala aan lahayn baa jirta marka dadkuna saddexdaas ayay u kala baxaan waa maxay hadaba sababta loo beera qaadka waxa loo beeraa ganacsi ahaan bay dadka u beeraa iyagoo isticmaala inta badan inta beertay ta kale dhaqaale fara badan dalalka dibadda ah baa loo dhoofiyaa especially Soomaaliya iyo Djibouti baa dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galaa barigan Ethiopia dadka beera marka iyo deegaankeena Soomaalidaba marka anigu kulli tartaan ahaan waxa soo jeedin lahaa jaadka la iska daayo waayo dhaqaale ahaan ummadeena danu ma aha caafimaad ahaan cidda cunaysa danu ma aha marka ma daynayno xitaa hadii la leeyahay anagu waanu iska cunayna anigu waxaan ku talin lahaa in la beerto fandaalkiisii baa loo sameystaa cidina fandaalkeeda ku dhiibi meysadi ee intaad cid kale u doonan lahayd at least adigu beero oo adigu gacantaada iyo tacabkaaga adigoon cid kale u daba fadhiin inaad haysato ninka qeyrkaaga waxaad u faani kartaa marka aad adigu saddexdaada waqti gacanta ku haysato ayaad oran kartaa cid kale maxaad yeeli kartaa laakiin adigoo duhurka u baahan in jaad lagu soo diro ama meel kale lagaaga keeno ninka qeyrkaaga isuma faani kartid